bulshay yahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshay yahay aqoontiyo ku dadaala bar ama baro waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dadweynaha Soomaaliyeed intii fahantana ayagu noogu sii dhiirigeliyaan inaan u balaadhino barnaamijkeena. haddii aad u baahan tahay wax macluumaad ama caawimaad waad nala soo xiriiri kartaa adigoo adeegsanaya ciwaanadeeda hoos ku qoran Facebook-geena adigoo like saaraya. fadlan subscribe, share iyo like ku samee videoga haddii uu ku cajabiyo. Hello, assalamu alaikum dhamaan ardaydii hore ila socotay. waxaan idin tusi doonaa maanta xisaab aad u jilicsan taasoo ah tii hore aan soo baranay oo kale. sagaal hore aad soo aragteen. marka maanta waxaan idin tusi doonaa tirada 6 ka weyn 6 7 iyo 8 oo aad u fudud runtii. marka aad fahanto waxaan isku dayi doonaa mar walba inaan ku fahansiiyo sida ugu dhibta yar leh ee aad ku fahmi karto. waan hubaa inaad fahmayso. commentiga hoose aad ku soo qorteen oo aad in easy dhiirigeliyay. waan ku mahadsantiin intii la soo xiriiray ee rabtay inaan u soo badiyo. mar walba waxaan jeclahay inaan oo aad easy dhiirigelisaan si aan idinka faa'iideeyo. hadda waxaan ka bilaabaynaa 7 marka lagu dhufto 8. labada gacmood markaas hor dhigto dhinaca bidix baad ka soo bilaabaysaa. 1 2 3 4 5 6 7 waad laabaysaa labada farood midigta dhinaceedana dhinaca midkii baad ka soo bilaabaysaa adigoo sidii hore u tirinaya 1 2 3 4 5 6 7 8. marka dhinaca midig 3 baa ka laaban dhinaca bidixna 2 ka laaban 2 1 2 3 4 5. marka labada la isku geeyay iyo 3 laaban 5 weeyaan. marka waxa soo haray 3 farood oo dhinaca bidix iyo 2 farood oo dhinaca midiga waa la isku dhufanaya. marka hore waan isku geenaynay 9 sidii aan ku soo baranay. marka waa la isku dhufanaya 3 marka 2 lagu dhufto waa 6. marka waa 56 natiijadu. tusaalaheeni labaad baan bilaaban doonaa. tusaalaheeni labaadna waxaan ku fiirin doonaa lambarka 8aad. mar haddii aan 7 soo aragnay 8 iyo 7 way shabahan sidii aan hadda u sameynay oo kale iyuunbad u sameynaysaa. marka waxaan ku bilaaban doonaa marka 8 lagu dhufto 8. labada gacmood markaas u dhigto sidii hore aan kasoo bilaabanay u tirnay 1 2 3 4 5 6 7 8. saddexda farood baad dhex ka laabtay xakan kale nimid 1 2 3 4 5 6 7 8. xakan la saddex baad ka laabtay saddexdan iyo saddexdan laaban isku gee waa 6. xagan kale laba farood baa ka soo furan oo la laabnayn waa la isku dhufanayaa. aad bay u jilicsan tahay. waa markaa natiijadu ay noqotay 64. Asante.